laba nin baa sheekaysay oo odayaal ah oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay niyo waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curado oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhig marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaarta masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaarta suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subaxi waagu markuu bariyay aduu nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegma roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wariq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaha nool ama ku jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimateen marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saas u jiifaan qoortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagii midha xalad dilaaceen qaraxii meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaan meydkii tiriyebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay raadna mala roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan u yimid biyo geed hoosti ku socsan waa fiirshay gabadhi way nooshahay ma dhiman ayadu way socsan tahay ratigii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratigii baan la dhaqaaqay وانا سغالkeedii baa gabadha go'ay maalinkood dhan baan wadaa buu yiri ratigii waa iska muqanayay maskaxdaydu xataa caadi uma joogto goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool ba qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay kugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratigii baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay male geed baan inta fuulay bi xaleef ka soo goostay bi xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caadi u sheekeynay asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin waligeed balaaya wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersan tahay iyadoo dhan nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariqdu ku dhacdo dadka hore dadka oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigii baan bireeyay ayr bartiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaad gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu yartigaan noo qalayhay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga dah gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisi jeergaankii baalkii jeegi yaxaas baa ku dhuftay markaas aan waxaan arkay jeegi oo cirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii raabaan ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofku oo hilibka u qaliyay gabadhay ahayd asagu nolol kuma jirin wixii ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduubay saan u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asna nafku ku jirin ila hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuu qaawaya asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baan waxaan ku warhelay bahal ulaho igu dhigtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay uleynayso waxay tir balaayada reer ariga dhex degtay maxaa saas markaan u istaagay oo ayartay inaan qaawanahay bayse siidays way carab 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tir balaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay wasado gaybo ahaa wiil oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray biilo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cunta ii siyaasado ila hadlay muu ta tagay يو شيخ ينمو سو كخيو gabadhi waa leegu meeriyo habeenkii baa aqal baa leegay
haddeer buu yiri ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka waligay dhibaatay iguma dhacin laakiin maalinkaas cirib saartay